galab wanaagsan waa shaah iyo sheeko qaybtiisii 12aad galabta halkan waxaan rabaa inaan ku soo qaato qiso dhacday 1967 bishii koowaad kowdeedii qisadan sababta aan u xusaya ayaa waxay tahay marka aad eegtid marxaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay maanta iyo go'aan qaadashada dadka hoggaanka u ah waxaan u xusayaa waxa weeye in wax laga barto wixii la soo maray waxaan la soconaa waddanka Soomaaliya marka maanta aan ka hadlayno min cirif ilaa cirif waxa ka shaqeeya oo maamulada ka jira ay hoos wada fadhiyaan waa hay'ado NGOs la yiraahdo hay'adahaas ayaa waxay curyaamiyeen dowladdii ama maamuladu waxay qaban lahaayeen badanaana hay'adahaasi sida adduunka maanta aan joogno soo shaacbaxaysa wadamo badan baa laga mamnuucay khataraha ay leeyihiin markii la ogaaday waxay fidiyaan dhaqannada waxay fidiyaan aragtida waxay abuuraan dad maalin dhexdaasa toddobaadkan hadda aan ku jirno toddobaadkii ka horreeyey qof sharci yaqaan waddankan u dhashay oo u sharaxaya arday baa qodob ka mid ah ardada waxa u sharaxaya waxaa ka mid ahaa sida ay u abuuraan dad ay u abuurtaan waddamada kale waagii hore adduunyadu markii laga hadlayo waayadan dambe maaha waagii hore waxaa jiray aragti ah hadda xoog baa soo shaacbaxay wax walba gacan bay noqotay waagii hore waxaa jiri jira la yiraahdo soft power la yiraahdo oo qofku asagoo aan ogeyn gacanta lagu dhigayo la maamulayo soomad arag si dadbanna loo marayo mogto meeshii xoog iyo qasabka wax loogu sandulayn lahaa hay-adahaas sababta loo sameeyey ayaa waxay ahayd noocaas ummaddu ayadan is ogeyn in dhaqannada la raba in la fuliyo meeshii uu asagu kugu fulin lahaa mid adiga dadkaagee ah la tababaro uu fuliyo hawshii waddamo badan waxay ogaadeen khatarta ugu weyn oo dowladnimadoodu la dhaqaaqi lahayd inay taas ahayd marka laga hadlayo burburkii ku dhacay waddamadii Sovietka la oran jiray buug ka mid ah buugaagta laga qoray wuxuu sheegayaa saddex wax baan ku jabinay wixii Warsaw la oran jiray oo waxaan la yiraahdo kow waa free marketka waxa la yiraahdo suuqa xorta ah warbaahinta xorta ah mediaha xorta ah iyo waxaan NGO-yada la yiraahdo saddexdaas waxay noqdeen waddan walba in lagu qasbo in laga hirgasho haddaba ma bilaaman aragtida noocaas ma bilaama wax hadda bilowday ma ahan hay'ado badan baa waddanka ka shaqayn jiray waddanka Soomaaliya markaan u laabta marka lixdameeyada intaas xornimada qaadan Mareykanku wuxuu ahaa kontomiyadii daaqliga markii lagu dhawaaqay inuu waddanka soo galo asagoo shidaal baarahay kambanigii uu la yimid Sinclair baa la oran jiray oo dhinaca iyaga Soomaaliya dhinaca Soomaalida Itoobiya labadaba qofkii shirkadii baaraysay ahayd 62 hadbay haddana waxay ku darsadeen inay waxay keeneen kaniisadahoodii waxay keeneen sida waxa yimid hay'ad la oran jiray Peace Corps oo Mareykanka ahayd baa timid hay'addu marka ay imaanayso waxay u imaanaysaa dad volunteer oo u shaqeynaya inay iskoolaadka macallimiinta ay ku shaqeeyaan dadka ay wax baraanba haddana dhinaca kale waxay matalaysaa inay siyaasadda waddanka uu leeyahay ay fuliyaan mogto aragtida ay gudbiyaan waxaan la yiraahdo value oo western value oo kala ah marka qorshayaashaas diintana way dhinac bay uga jirtaa
halkaasa waxaa ka soo baxaya ubadka ay tababarteen oo Soomaali ah baa ka soo baxay kuwaasoo aan aaminsanayn aragtida aan ahayn wixii dadkii soo kobciyay ama gaarsiiyay heerka ama nolosha tusay ayagoona nolol haysanba Soomaad arag dhinacii Talyaanigu kale waa lahayd Ingiriisku waa leeyahay wadamada reer galbeedka dhan waa leeyahay aragtiyada marka ummadaha lagu kala qaybiyana halkaas ay ka soo bilaabantaa marka ugu horeysaba Soomaad arag marka dadkaas ay soo baxaan baa isla wadankii 5 qolo oo kala noocaba iska hor imaanayso ku dagaalamaysa midba aragti xambaarsan yahay qisa dhacday marka 67 baa waxa loo diray 66 baa waxa loo diray dhabaadkii 66 baa waxa loo diray Peace Corps gobolada Soomaaliya kale gobolka Mudug oo kala loo diray gobolka Mudug xilliga waxa maayarkii ka ahaa Allah naxariisto Xaaji Xuseen Ciid oo aniga aabahay baa marka qiso aan ka hayo baan rabaa inaan waxa aan maanta ogaaday inaan ku dabaqo qisadaas ayada maraan iga sheekeynaya sheekadu sida u dhacday 1995 wuxuu yiri habeen nimankan galbeedka wadanka soo galahayay dadku mar walba shaki bay ka qabeen waxaana la iska ilaalinayay dhinaca diinta Soomaad arag gaalkacyo kale markay yimaadeen waxay deganayeen xerada daraawiishta waagi dambe meesha ahayd bay nimanka u ahayd deegaan gobolka waxay u yimaadeen marka inay iskoolaad ka dhisaan kuwa dhisnaana ay wax ku daraan kuwa aan dhisnaynna sida degmada Bacadweyne oo kale iskool laga fura laga dhisi lahaa degmadaas oo kale meeshan la yiraahdo gaalkacyo kale iskoolka Bardacad oo gaalkacyo qayb baa ka dhisnayd laakiin qaybta weyn oo dambe oo kale oo maaragtay qaybta dugsiga hoose waagi dambe ahayd baa ka dhisnayd oo Talyaanigu dhisay inta kale iskoolka ka soo hareertay inay dhisaan bay ahayd iyo iskool kale degmo kale banaanka laga dhisay Bacadweyne iyo mid kale iyo ka saddexdaas qorshaha ay u yimaadeen saddexdaas ahayd nimankii waxa dhacday buu yiri inay dhalinyaradii wadanka magaalada gaalkacyo ay lahayd ay gacanta ku dhigaan oo gurigoodu uu noqday meel ma aragtay waxaan muusigii galbeedka khamrigii iyo jaraa'idkoodii hooy u noqday waaga waxa jira xisbiyadu waxay lahaayeen ururo dhalinyarada xisbi walba uu lahaa marka iswa xisbi sidoo kale dhalinyaray lahayd garab dhalinyaraa jiray xisbiga SNU la oran jiray oo grade-ka sidoo kale ahaa odagu marka garabkii markaas wuxuu ahaa grade-ka laakiin xisbiga grade-ka la oran jiray waxa dhacday marka habeenada kamida sanadkii cusba ahaabay nimankii waxay ballansadeen inay baarti ku dhigayaan xaruntoodii dhalinyaradii oo dhan way kaxayseen dhalinyaradu marka niman ku xirmay baa jira oo joornaalada ay u keenaan ma aragtay xaruntoodiiba saldhigtay ku bartay khamrigii habeenada kamida mid kamida dhalinyaradii baa maayarku u yimid ku wargashay waxa ka socda meesha kaale soo arag indhaha ku soo arag odagu markuu iga sheekeynay wuxuu yiri waxaan hore u qaatay go'baan huwaday waxaan tagay xaruntii baartigii habeenii yeerkii socda baan u tagay goor habeenkii galankii dambe oo habeenka waxaan indhahay ku soo arku yiri waxa la furayaayo meesha yaalla waa khamri kaliya dhalin badan oo magaalada lahayd baa ku jira oo u badan wixii markaan indhahay ku arkay waan iskaga laabtay subaxdii waxaan shiriyay golihii deegaanka wadanku lahaa gobolku lahaa wixii cadaymihii aan xalay soo arkaan u soo bandhigay waxaana u sheegay si joogitaanka hawshan ay wadaan inay intaa ka sii badanayso golihii markay ka doodeen waxay isla qaateen inaysan u baahnayn shaqaday qaban lahaayeen ayagu madaxa u ridanayaan go'aankii wuxuu noqday kowdii Janaayo 1967 inaan ka saarno magaalada
go'aankii uu soo baxo golaha ay isku raacaan golihii konsulka magaalada ay isku raacaan sidii baan uga saarnuu yiri gobolka mudug nimankii peace corpska ahay oo yimid meesha annagoo ka duulaynaa dhaqan xumada ay faafinayaan xilligaa waxaa waddanka ra'iisul wasaare ka ahaa allah u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen odagu markuu ii sheekaynaya wuxuu yiri maalintay ka baxeen maalintii ku xigtuu isoo wacay wuxuu yiri muhiimaddu aan ka lahayn inay halkan yimaadaan waxay ahayd dhismaha iskooladaas soomaad arag marka sooma fiicnayn inay hawshu intay dhammaystirayaan ay joogaan waddanka mogto annagu waxaan u gudbiyey buu yiri go'aankii golaha iyo khatarta ama dhaqan xumada ay nagu wadaan inay nooga daran tahay waxay noo samaynayaan ra'iisul wasaaruhu marka wuxuu igu sheegay baahidii jirtay maxaa looga talinaya marka xagee go'aankan u sheegna waxay ahayd buu yiri intay iskool ay dhisi lahayeen annaga dhisanayn wuxuu igu soo ceshiyey ma kala xisaabtamaynaa marka go'aankaas ma idin kala xisaabtamayaa waxaan yiri si aan u ballan qaadnay baan u fulinaynaa hay'adii joogtay gobolka mudug saddexdii iskool ay dhisi lahayd saddexdiiba waxaa dhistay maamulkii gobolka soomaad arag cashuurtu ay lahaayeen baa lagu dhisay iyadoo dowladdii dhexana aysan gacan ka siin waa 1967 xilligan ka hadlay marka waxaad garan kartaa maanta markii la barbar dhigo 1967 waxaad arkaysaa wax ka yar saddexda iskool oo maalinta la dhisay inaan maanta aaban loo qaban dadka bogti soomaad arag saddexda iskool oo xilliga la dhisay inaan loo qaban marka waxa loo toro waa falaxal maalinta falaxalka oo kala weeye soomaad arag maamul dhan oo marka wasiiradiisi iyo ama dowladda dhan oo ay u soo istaagaysaa arkaysaa ayadoo la leeyahay faradaaqa la baraya 35 sano ugu dambeysay hal iskool oo ay hay'adahaasi dhiseen lama hayo soomaad arag haddana dad baa waxay moodayaan noloshoodoo dhan haddii maanta la yiraahdo wax ay hayaan male ama la joojiyaba inay ay ku baxayso marka waxa dhacday ii sheeg baahidii wax laga qaban mahayo foolxumadan kalena waa jirta ummadiina dhaqan xumo baahsan oo xagga diinta dhaqanka culture wax walba ku faafaya waddanka marka inay ummaddu sida isku dhaanto ay waxay 67 qabsato waxa ugu weyn ba qabsan ka dhacay ay meesha ka kacdo aysan u xirnaan deeq ama bahalkii gacan shisheeye ama hay'adan waxba tarayn maamulada iyo dowladuhuna inay ka fakaraan ummadooda inay wax u qabtaan waxooda ka soo baxaya waa ku filaya maanta ka lacag badan yihiin 67 kana aqoon badan yihiin السلام عليكم انت سوف تسوق مع